بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيات الشرف تلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكeenii tusaalaha nolosha maanta waxaan kaga hadlaynaa oo xalaqadan maanta ah waxay ku saabsan tahay waa barnaamijkeenii ahaa nolosha oo dib loo hagaajiyo nolosha oo la saxo. barnaamijkaas oo saddex xalaqaan kaga soo hadalay ayaan xalaqada afraad ama taxanaha afraad maanta waxaan kaga hadlaynaa haddii cadaalad la sameeyo maxay dhashaa aakhiro iyo adduun labadaba. taasaan kaga hadlaynaa. waxa way run ahaan markii saas loo fiiriyo cadaaladda waxa ka dhalanaya waa wax aad u weyn adduunyo iyo aakhiro labadaba. adduunyadana hadda aan joogno oo ina dhibaayo oo waxa weeye aakhiri adduunyadu waa isku mid oo ilaahay wuxuu yiri rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina cadaaban naar. way isku xidhan yihiinoo waa dariiq aan ku waa maanta dad musaafiriina ayaan nahay waxaan u soconaana meel mustaqbalkeena rasmiga oo aakhira ayaan dhisaynaa. adduunyadu marka dadka quruxda ku dishaa markii xoolo iyo caruur iyo xugun iyo maal lagu siiyo waxaaba iska halmaamaysaa wixii kale waxaad leedahay waxaan weligayba anu ragnimadeeda iyo dadnimadeeda ayaan ku soo helayo kaabir aan kaabir weligana sidaan aan ahaa baad arkaysaa adoo leh badana ma arkaysid ruux intuu madax noqday ceebihiisa sheegay. marka dhalinyarada jaamacadda iyo markaan runahan aan u sheekayn jiray ama dhalinyarada hadda markaan u sheekeeyaba waxaa mararka qaarkood fiican in ruuxu wuxuu soo maray uu sheego oo dhibaatada hayn jirta uu sheego oo maalan inuu yiraahdo war anu waxaan ahaa faqiir baan ahaa aniga saas ahaan jiray faqiir baan ahaa agoon baan ahaa tabar ma lahayn anoo dhar qabin baan yaa noolaan jiray anoo baahan baan noolaan jiray. marka adu noloshaada marka u sheegto midka marka aad maanta la hadlayso isagu mushkiladu haysato wuxuu fahmayaa inuu ka bixi karo noloshaas uu fahmayaa. adigana waxay ku tahay ilaahay baad ugu dhawaanaysaayo inaadan sidan soo ahaan jirin marka dadka u sheegayso. sayidina Umar radiyallahu anhu markuu sheekaynayo inuu ari raaci jiray oo dad ka qaadan jiray quruush yar yar lacag yar yar ka qaadan jiray oo dadka u sheegi jiray isagoo xukuma dhulka ugu weyn adduunyada markaas uu ruux xukuma u jiro oo nin carab dhulka xukuma dhulka ugu weynaa sayidina Umar markuu noolaa buu ahaa gadaal haba ka sii fido saadaradeed waxa weeye waxa la rabaa cadaalad marka la sameeyo adduunyadana hadda joogno yaan u baahanahay mar maxaa ka dhalanaya koow waxa ka dhalanaya cadaalada iyada ah dad isla jira oo isu duman on col ahayn bay cadaaladu keenaysaa. wax la yaab la waayo dad isu duman oo heshiisa ayay keeni. cadaaladu waxay keenaysaa hoggaan warkiisa la yeelo. maxaa jira يعني markuu arkay nin sidina Umar ul yaro khafiif oo haysan jiray markaas uu shaba baad ul ma bahaba yani ushiisu saa u gilgili jiray marka waa ul yaro oo ul weyn ahayn markaas wuxuu yiri intuu saa u fiiriyay buu nin la soo noolaan jiray madaxdii Room iyo Furs iyo la soo noolaan jiray Iran iyo madaxdoodii la soo noolaan jiray baa wuxuu yiri walla wuxuu usha yarta ah Umar waxay ka xoog badan tahay buu yiri warmihii iyo seefihii boqorada la soo noolaan jiray tana ka cabsi badan buu. maxaa jira waxa laga cabsan waa cadaalad ee usha maaha yani. maxay ruux markuu caadil yahay ilaahay baa dadka quluubtiisu haybo u siinaya. dawladda marka waa laga dambayn oo warkeeda la yeeli. waxa warka dawladda loo yeeli leeyahay markii la arko nin xaakima oo guri dhisanaya oo islaansi guri dhisanaysa oo walaal guri dhisanaya oo xoolo boobaya oo xooli dadka xadaya marka la arko ama la arko nin رئيس شركة أو ساس سمينة أما رئيس جامعة واحد أمدا كده حيا نبغى يمرك الأركو ورك سلامة دقيسنايو قدم كصدحات وحي لا ليس نول عمران نول يا عمرة نول عدالة عمرت مركي عدالة دي أن ويني علماء دي للدلي وسياسيين تي للدلي والدين تي لعاي والله اسكوك عاي يقول كين الدبي وانت شو ويني يقول كين الدبي saadaradeed hadii dulmi uu marjiro dhul ma amir maayo waa qalad inaad marka si xun u fikira lama rabo. waxaa la rabaa dadka xukunka jooga iyo shacabku intuba inay fahmaan hadaan cadaalad la sameeynin dhul ma amir maayo. idan cadaaladu maxay dhalaysaa dhul amiran ee dhalaysaa. waxa weeye waxay dhalaysaa oo kale marka loo yimaado qodobka afraad marka loo yimaado waxay dhalaysaa cadaaladu waxay dhalaysaa
xoolaha oo batana way dhalaysaa yani waxa weeye dhulku markuu camirmo xoolihii baa badan waxay cadaaladaas waxay abuuraysaa dadka oo tarma dadka ayaa tarmaya guurka badan istiqraarka badan marka dadkaasi way badanayaan yani mesela hadda marka la fiiriyo 50 sano oo soo dhaafnay 40 sano ee soo dhaafnay oo isleeynay yani marka laga soo bilaabo 77kii ilaa hadda isleeynay si toos aan isu leeynay dadka Soomaalida oo xabadi dishay marka la fiiriyo dadka xabadi dishay marka la fiiriyo 100,000 oo ruux waaye 100,000 oo ruux oo wax dhali lahaa oo dhalinyaro u badan oo rag iyo dumar leh ayaa marka la dilay ilaa hadda marka dhimanayaan inta reeru iska dili inta dawladdu dili inta dagaalada ku dhiman saasoo kale maxay ka dhalatay dulmi bay ka dhalatay dulmiga marka wuxuu joojinayaa tarankii dadku joojinaya maxaa jira adiga takhayal 300,000 oo ruux oo dhalinyaro u badan markaad adigu iska disho ama cadow ka dilo farsamo xumad daraad uu kaaga dilo waa dareemi kartaa marka sanadii population kaaga inta ka go'aysa intaas sano walba waxay dhali lahayd ruux markay ugu yartahay markaas sanadii waxa intaas ay dhali lahayd 200,000 oo ruux oo sano walba dhalan lahayd ayaa meeshii ka baxaysa automatically marka qodobka ugu dambeeya oo lixaad oo ay dhalaysa waxa weeye xukunka oo saldhigta ay dhasha cadaaladu xukunka oo saldhigta ay dhalaysaa maadaama loo baahan yahay cadaalad aan wada baahannahay ruux kasta cadaalada marka inuu qayb ka noqdo waa muhiim waaye inta aan soo sheegnay ma dhalanayso haddaan cadaalad la helin ma la arkayo adduunyada marka intaas ma dhacayso haddii dulmi la sameeyo marka maxaa dhacaya adduunyadii waa kanoo markaad wax disho iyo gabadhii la kufsaday iyo kii dilkii iyo dhicii iyo guryo xaaraan oo ilmo lagu soo korsanayo iyo xoolo guryo xaaraan lagu dhisanayo iyo madaxaan xishoonaynin oo boobka xalaashanaya oo dictatornimada iyo kaliitalinimada dadka ku leynaya markay soo baxdo طبعا adiga adduunyada waad khasaartay automatically waxa ka dhashay waxa inagu dhacay baa ka dhashay aakhirana maxay marka dhalaysaa nabigu kaleey salaatu wasalaam si dhib yar buu inoogu sheegay aakhira waxa dhalayso wax oo meel fog laga raadinayo maaha nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri faqir waake man al-muflisu ruuxa faqirka oo gaajadu dili aan waxba haysan waake saxaabadu waxay dhaheen waxa weeye ruux aan shilin ba haysanin man la dirham lahu wala dinar kaas weeyaan faqirku nabigu wuxuu yiri kaama ahab faqir maxaa jira cunto inta noosha adiga cunto ma waayse moogtahay marka nabigu wuxuu yiri innal muflisa min ummati ninka faqirka ah waxa weeye buuri ka yawm al-qiyaama imaada isagoo salaada iyo soonka iyo zakada iyo khayrka oo soo sameeyay buu yawm al-qiyaama imaanaya buuri markuu yimaado wuxuu imaan buuri isagoo mid caayay isagoo mid been ka sheegay oo been abuur ka sheegay isagoo xoolihii dadka boobay oo xoolihii dadka xaaraan ku cunay iyo wixii la midka ah iyo isagoo dadka dilay iyo isagoo ka gacanta u qaaday intaas imaan yani macna dalika xaaraantii oo waaweyneed oo dhan buu soo sameeyay sidaas ayuu ku imaan buu yawm al-qiyaama marka taban wanaagii uu soo sameeyay baa laga qaadayaa dadkii xumaanta ayaa miisaankooda la saaraya marka waa adigoo mesela 1 milyan oo dollar lahaa oo laga qaaday 1 milyan oo dollar oo dadkii deynta kulaha la siiyay baa la mid tahay laakiin wali deyntii ma dhamaanin maxkamada lagu saari Soomaha markaas xabis ila abad lagu gelinayaa marka yawm al-qiyaama marka la tago xasanaadkiisi markii la qaaday dadkii kala xumaantoodii la soo qaadaya mesela kii zinaysay iyo kii dadka dilay iyo kii dadka caayay iyo kii aan soomin iyo kii aan salaadin ayaa dam xumaantoodii la soo qaadi miskiinkii laga qaaday oo dadka soo laayay oo ajirkiisa oo laga qaaday baa la dul saaraya markaas naarta la gelinaya kuwii kale oo qaarkood ay khatar ku jireenna sidaas ay ku nabad galeen marka muflis waa ka marka takhayal adiga walla hebel fiican weeyo guriyahaas u dhistay hebel bariba ka wada tagaya caadi dalkan wixii soo xukumayay maalin walba nibba dhimanaya marka waxa la rabaa ummadu inay si sax inta u fikirto dulmiga lala dirir ayaa la rabaa dulmiga sida loola dirir in qori loo qaato shardi ma abadan yani ruuxi qori xukun ku noqday uu ka digi ugu dambaysta yani qori baa laga qaaday laakiin alxamdulillah yani iyadoo nabad ina maanta isu dhidhiibayno waa nooc oo sharaf oo cadaalad waaye runta marka la yiraahdo
saadaradeed waxa uu imaanayna marka cadaalada waxay dhalaysa fardigii raaxadiisii baa kamid ah insaanku si fiican buu u noolaanayaa waxa kamid ah cadaaladii dawladii oo saldhigayso si sharaf leh u joogaysa oo ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wuxuu yiri waxyaalaha laga soo wariyay ama diimihii hore ama xikamta la soo wariyay dawladda caadilka way raagaysaa gaalbaha xukume dawladda dhaalimka ana way dumaysaa muslimaha xukume ayuu yiri idan waxa dareemaysaa marka meesha Soomaaliyeed Amr ibn Aas markuu maqlay nin saxaabi ah oo warinaya xadiis nabiga uu leeyahay aakhir zamaanka dadka waxa u badan doona Ruum baa u badan doona waa reer Yurub yaan xukunka reer Yurub markaasuu intuu Amr u yaabay baa wuxuu yiri hadaaba sidaa sheegay xadiiskii nabiga ay tahay shan shay bay ku sifoobeen ogow buu dhahay waa dadka ugu dulqaad badan oo markii maartay fitantu ay dhacayso dulqaad kale waa dadka markay jabaan durba soo noqdo heshiiya oo xoogooda dib u dhista waa dadka maartay ka soo baraaruga markay musiibo ku dhacdo waa dadka masaakiinta ugu gargaar badan oo faqriga la dirira tashanaadna wuxuu waa mid iyadu yaab leh oo quruxsan buu leeyahay amna'uhum min dhulm al-muluk buuri rawahu muslim ba xadiis ka wariyay wa Amr ibn Aas oo xadiis nabigu yiri buu fasiraya oo hadayba Ruum aakhir zamaanka saa noqonayaan dadka marka sifooyin kale weeye buu dadka tarma maxaa leh adoo kale say u tarmaysaa dadka ayuu dhiigaad ma afar la tan ka saadinaysaa saadaradeed waxa la rabaa hadaan dawlad rabnana waa inaan isu kaalmayno oo isu kaashano oo dulmiga aan celino oo xaakimkaas maanta la doortay oo doorashada ku soo baxay waxa la rabaa in la yiraahdo xaakimo caadil noqo ninka soo imaan doono tartamayana la yiraahdo barrito waan tartamaysaa inaad heshaa dhici kartee sida u dhaqan shacab marka fiir cadaaladii oo isku toosnayna cadaalad ma sameyn karo xukaamta iyo dadkuna xukaamta xunxunna waxay ka yimaadeen dad xun bay ka yimaadeen xukaamta daalimiinta iskamayna imaanina dad daalimiina dhalay marka yeynaan caruurteena dulmi ku korinin reer hebel baa ka fiican reer hebel baa xun waxaasa ilmaheena ku soo korina saadaraade lacnada guriyaha ka socota ayaa ilmaha korisa inuu reer hebel ka fiican yahay wala taziru waziratun wizra ukhra baana leeyri assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh